السلام عليكم أخيرا وأنا سلامي muuqaalkan waxaan ku baraynaa qaabka kombiyuutarkaaga lagu shubto Python sidoo kale qaabka loo ogaado in Python kugu jiro iyo nooca Python ee kugu jiro kombiyuutarkaaga sidoo kale waxaan baraynaa sidee kombiyuutarkaaga lagu shubtaa Flask intaas ayaa isla baraynaa waxaan tegaynaa Google ayaa tegaynaa halkan marka waxaan ku qoraynaa Python ayaa ku qoraynaa oo kaliya download aan qoraynaa kadib waxaan geenaa marka official website-ka ee leedahay Python ay leedahay waa kan u koreeya oo ku dhufanaysa markaas download-ka ayaa ku dhufanaysa Python kadib marka aad soo keeno waxa ku sii dhufanaysa markaas download ayaa ku sii dhufanaysa hadda version kala maray waa Python 3.13 waxa laga yaabaa markaas maalmo kadib install garaysanaysa inuu version-ka wax ku sii darsado marka aday last version-ka ku dhufanaysa iseen waa 27 MB oo noo soo tagay حتى مركا أما ستة هالكان أقول فكرتها ساوي install جريسيد مركا علامة دولتك ما يشتغل كسر فسكرتها نكدي ساوي install أو دهانو هالكان النكينا يا هالكان مركون نكينو وحالنا مركز install أي علينا هاي هالكان مركز هالكان تشيكس كساري ساعد بعد iyo halkan waxa ka marka ina admin privilege maadaama computerka uu admin yahay hadii computerka ay admin oo ahayn oo userka la isticmaalayo admin ahayn waa saaraysa dalka userka weyn oo yahay computerka uma baahnid inaad saartid markaas install ay ku dhufanayna marka install ku dhufano intaas oo kaliya way horay ayuu kaga install gareysmaya saa u jeedinaa waa fast waxa ku xiran tahay computerka isticmaalaysid انت install u qaadanaa laga marka aad u weyno wax baris ma markaas installation kiis okay waan ku guuleysana marka in aan ku shubano computerkeena Python waa inta soo kaliya hadda Python-ki waa install garaysan marka waxaan tijaabinaynaa in uu noogu jiro ayaan tijaabinaynaa waa iska kala isgareynaa waxa la leeyahay computerka tusaale ahaan window r a kala iska leedahay cmd ayaa qoraysaa kadib enter leedahay kadib meeshan waxaan qoraynaa marka Python ayaa leedahay kadib markaas waa kan Python-ki oo noo install garaysan yahay waa Python 13.2 version-ka isticmaalnay marka computerkeena si sax ay ugu jiraa Python next marka waxaan u gudbeynaa qaabka loogu shubto computerka Flask laba nooc ugu shuba kartaa in aad qaab virtual ahaan in aad ugu shubto virtual machine oo fin ay isticmaashid iyo qaab si guud computerka aad ugu shubto labada waa la isticmaalaa waxa leena markaas waxa teena marka isla cmd ay teena xalana window r ay leenahay cmd ay qoraynaa kadib waxa meeshan ay teena xalana pip markasto Python oo package ay install gareynaysa waxa la isticmaalaa pip ayaa la isticmaalaa halka javascript iyo npm ama npx la isticmaali jiray kan waxa la isticmaalaa pip ayaa la isticmaalaa pip marka dhahno waxa leena markaas install ayaa leenahay oo install marka dhahno Flask ayaa leenahay Python install Flask after waa inay capital taa fiican saas u qoraysaa marka Python install Flask hadda marka wax yar ay suuynaa si computerka ugu shubmo hadda waa la soo qaatay faylashii waa la soo dejinayaa computerkeena qaabka marka waa qaabka waa local waa computerkaaga meel kasta waa laga isticmaali karaa Flask waxa soo furaysaa Visual Studio Code ka soo furaysaa hadii kugu jirto hadii kugu jirno ku soo shubo oo soo degso Visual Studio Code marka soo degsatid waxa leena meeshan waxa ku dhufanaa file waxa ku dhufanaa open folder cusub aan sameysanaynaa ana hadda folderkan waxa ku dhex abuuranaa music adi meesha rato ka abuur kartaa waxa leena marka control shift n ayaa leenahay si folderka magaca la baxna marka waxa leena markaas Flask app askan magaca arabta la bixi kartaa direct Flask project direct iska dheh ana Flask ayaa leenahay kadib waxa leenahay folderka gudaha u sii galeynaa kadib waxaan select folder inta marka joogno Visual Studio Code waa soo furnay folder cusub oo ka sameeysanay waxaan bilaabaynaa marka inaan sameeyno file-kan waxa u macdareynaa app waxa leenahay .py ay leenahay
marka faylkeena furo waxyaabaha ugu horeeya anagala waxay tahay kow inaan horta aan wacno module-kan loo yaqaano Flask. waxaa kasoo import garaynaa galaaska loo yaqaano import Flask ayaa kasoo import garsanana. intaas ayaa noogu filan inaan Flaski horta u yeerano. markaan u yeerno sidoo kale waxaa instant ka samaysanayna isla galaaskan ayaa waxaa ka samaysanayna instant. waxaa ku shubaynaa marka variablekan waxaa leenahay app aa leenahay, sidoo kale waxaa leenahay Flask, sidoo kale waxaa markaas pathkan ayaa u wacana name, pathkan ayaa u wacanayna. marka hadda kadib markasta appkan isticmaalina markaan u baahno galaaskan appkaas ayaa markasta leenahay app hebel ayaa u wacanana. intaas kadib marka qaybta hoose usoo sakaynaa waxaan leenahay si loo soo rangareeyo Flaskigan markasta applicationka Pythonka aan rangareyno si serverka noogu kiciyo waxaa leenahay markaas conditionka ayaan qoraynaa if ayaan leenahay. kadib markaan dhahno name ayaan leenahay oo la egyahay oo la macneeyahay oo la egyahay waxaa leenahay main waxaa leenahay okay main. kadib conditionkaas markasta hoos ay noqoto waxaa leenahay waxaa noo rangareysaa appkii data instant ka samaysan app dot waxaa leenahay run. marka noo rangareyso waxaa leenahay baginka toolka dhig. marka intaa markasta waxay naga caawinaysaa in si toos ah codekan Pythonka aan rangareyno oo halkaas serverka naloo soo kiciyo oo debugging noo soo kiciyo. markaas markuu intaas yahay waa tijaabina marka inuu serverkan noo soo kacayo waa save gareynaa. waxaa leenahay view ayaa tegaynaa saa u rangareyno waxaan ka doorananaa terminal ayaa ka dooranaa ama waxaa isticmaali kartaa shortcodeka control backtick intaas inta badan isticmaalaa. markuu terminalka noo soo kaco waxaan qoraynaa waxa loo yaqaano Python ayaa marka qoraysaa si sax ah qoraalka iska sax space aa leenahay. waxaa wacanaynaa faylka magaciisa aad magac rabtaa loo bixi kartaa qasab ma in app uu la baxay laakiin inta badan server faylka app ayaa loo bixiyaa. waxaa markaas app aa leenahay dot py ayaa leenahay si sax ah u qoraynaa si u qoran ayaa u qoraysaa. kadib waxaa leenahay enter ayaa leenahay app dot py waxaan qaldan waxaa Python Python okay saad sheegayna waxaa qaladnaadna Python saa u qorana mar walba iska sax. waxaa Python saana u qorantaa waxaa app dot py ayaa leenahay qoraalkiina iska saxdid si uu qormayo Python ayaa u qortid taa xir qaladid. kaas hadda serverkeeni wuu noo soo kacay waa ku guuleysan inaan faylkeeni aan kicino. markaas waxaa argaynaa inuu Flaski noogu jiro computerkeena. haddii kale ma uu kuu soo kacaya serverka hadduu Flaski kugu jira halkanne errors ayuu kusoo qorayaa oo moduleka lama hayo. marka hadda Flaskiina waa ku guuleysan oo ku shuban. waxaa markaa linki aan kicinayna marka addresskana la siiyey si browserkeena loogu soo bandhigo. waxaa control la qabanayna kaliya leenahay okay. kadib markaas serverkeena ugu horeeyay ee Flaska aan ku sameeyno oo browser waa soo kicin laakiin wuxuu leeyahay not found waxa lama hayo oo websiteka serverka wax loo yaqaan root malaha ama http request malaha. marka waxa leenahay root ayaa soo sameysanaynaa kan waa iska xirina qaybta hoose halkan ay imaanayna. marka imaanayna waxa leenahay waxa loo yaqaan root ayaa leenahay oo inta badan la isticmaalo. waxa leenahay markaas okay soo waxyar app ayaa leenahay. markaan ano waxaa leenahay dot waxaa leenahay root ayaa leenahay. kadibna waxaa leenahay quotation string backed. marka kan rootka u horeeya marka inta badan oo homeka waa slash bis automatic ayuu u garanayaa in pagekas home uu yahay. marka kadib waxaana function ayaa samaysanayna. function markaa samaysano waxaa u baxsanayna tusaale ahaan waxaa leenahay home ayaa leenahay. functionkaas markaa samaysano home page oo kale tusaale ahaan ka wadana return ayaa leenahay. waxaa soo return garaynaya oo pagekeenan lagu soo bandhigaya wixii lasoo bandhigi lahaa marka slash la dhaho ayaa halkan ku sheegayna. marka tusaale ahaan waxaa leenahay welcome home page waxaa hartaa ku qori kartaa anay qoraalka iska qoraynaa. markaa dhahno waa save garaynaa serverkeena dib u kicinaynaa filarta gadaale dib u kicinaynaa serverkeena marka dib u kicino haya refresh ayaa leenahay. billah waa ku guuleysanay in aan serverkeeni browserkeeni wax ku soo qorno.
سلامي marka halkan waxyaabo kala samaysan kartaa tusaalahan Canada koobiyeno aanano halka waxaan dhigi karnaa tusaalahan oo kale cilada meesha marka wax lagu isku egyihiin waxaa marka meeshaan waxaan leenahay slash tusaalahan home oo kala dhaxnay amase home ka soo rano waxaan leenahay about oo kala iska leenahay about ay iska leenahay inta waxaan leenahay about okay about ka yar ururday about ay leenahay function halkan marka waxaan leenahay qasam ma sidoo kale waxa geli kartaa meeshaan html file geli kartaa waxaan leenahay tusaalahan waxaan leenahay html ka caadi ah ku qori kartaa hadaad page kale html ta sameystaa inta ugu dhaxwici kartaa markaas waa gaarayna qaybtaas sidoo kale waxaan leenahay waa xireynaa html ka inta taggeeni h1 ka ahaa kadib dhexdiisa xasoo qoraynaa okay about page alena hada laba root ayaa meesha noo kala samaysan kala fogeeyo midkan waa slash automatic marka server kala kiciyo uu soo kacaya hada slash la dhahno midkan waxa taa about ina dhahno rabiyo saan intaas ina raacin okay waa save gareynaa waxaan nahay refresh ayaa leenahay serverka dib u soo kicinayna marka dib u soo kicino waxaan teeynaa marka browserkeeni hadaa fiirno marka serverka la soo galo home ka jooga laakiin inta tago aan dhaho slash about da dhaho area about baada mujidiyo hado pages kala duwan website ka saas u sameeyna marka about contact hello page html kan hasa ugu soo xireyna oo halkan la tagtagaya markaas hada gaal soo celina about hada aan home ka lagu soo laabana home kuma baan slash maadaama aan wax u sheegin automatic waxa loo aqoonsanaya kaas home page laakiin about page contact page waxyaas ma sameeyna halkaas ku soo gabagabeeyna aad u mahadsantiin daawashada muuqaalka aad ka faa'iiday ama santa